heshiiskan horumarinada ay maanta kala seexdeen dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka 30 sano kadib ayaa waxa ku baxaya in ka badan 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah. wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ayaa dowladda Soomaaliya u saxeexay heshiiskan oo ka kooban dhowr qaybood oo kala ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka, dib u dhiska, shaqo abuurka iyo dowlad wanaagga. waxaana goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo safiir ku-xigeenka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ahna si hayaha safiirka. heshiiskan ay kala seexdeen Soomaaliya Mareykanka ayaa lagu cadeeyay in dowladda Soomaaliya ay leedahay go'aanada sida loo maareynayo mashaariicdan horumarineed si ay ugu salayso baahida ka jirta dalkeena. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa guul weyn ku tilmaamay heshiiskan dowladda Mareykanka uga mahad celiyay taageerada ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. inay 30 sano kadib dowladda Soomaaliyeed toos ula gasho heshiiskaas waxa ay sheegaysaa sida ay noo garab taagan yihiin waan u mahad celinaynaa. laba waxay sheegaysaa sida dowladda Soomaaliyeed loogu kalsoon yahay iyo meesha dowladda Soomaaliyeed ay soo gaarsiisay shaqada ay dalkan ka hayso. wasiirada halkan fadhiya oo ka soo shaqeeyay gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maaliyadda waxaan u soo jeedinayaa mahad ballaaran. dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa haddii aad soo gaarteen in wadano 300 milyan idin la seexdo wadano 200 milyan wadamada kalena ay soo socdaan sidaan habeen dhaweed markaan shacabka Soomaaliyeed la hadlaayay idin sheegay dowladnimada Soomaaliyeed indhihiina ayaa qabta ma hadal waxaanay waa dib u dhiskii ummadda Soomaaliyeed dowladda dunida ugu weyneed ugu muhiimsaneed marka ay tiri waxaan rabnaa inaan idin la qabsano wax oo heshiis toos ah idin la seexano tusaale ka badan oo u baahan tahay mar labaad Marti iyo dadka la socday Julie waa idin mahad celinaya iyo kulligiin dadka safaaradda Mareykanka ka shaqeeya wasiiradeedana waxaan ugu mahad celinayaa shaqada wanaagsan ay qabteen. shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay adkaysta kuna faraaday dowladdiina yaan la idinka farabaroojinin waa mahadsantihiin. heshiiskan ay maanta kala seexdeen dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ee ay ku baxayso in ka badan 300 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan dowladda Qatar iyo Soomaaliya kala seexdeen heshiis ku aadan mashaariic horumarineed oo ay ku baxayso 200 milyan oo dollarka Mareykanka. waxayna guulahaasi ku yimaadeen alla ka sokow dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku bixisay horumarinta hanaanka dowlad wanaagga taa oo soo jiidatay ama keentay in dowlado badan oo doonaya Soomaaliya inay garab istaagaan ay ku dhiiradaan xilligan inay heshiisyo kala duwan oo toos ay la sameeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.